nin lagu magacaabi jiray Nanfah oo fahmi jiray waxyaabaha ay ku wada hadlaan xayawaanadu ayaa habeen ag tegay dameer iyo dibi uu isugu iska lahaa si uu dhageysto bal waxay caawa ku wada hadlayaan. Dibiga ayaa bilaabay soo wacbanaya saaxiibkiis dameer, kadibna wuxuu odhanayaa, aniga ayaa beerta lagu falaa maalin kasta, daal, gaajo iyo xanuun kasta oo haya midna lagama nasiyo. Qoorta ayaa aad i xanuunta, haddana markasta beerta ayuunba laygu qodaa. Weli dibigii sii wata ayaa wuxuu yidhi isagoo la hadlaya dameerkii, adiga ku fiican ayaa dusha laga saaraa, shaqadaada oo dhammina waxa weeyaan in ninkayna dhaqday marba meesha uu doono aad u qaadid, macnaha aad gaadhi ahaan u noqotid. Maalinta uusan meel qabanayna waad iska nastaa, adigu caws fiican waad cuntaa. Dameerkii waa damqasho u muujinaya saaxiibkiis ayaa wuxuu yidhi, saaxiib, aniga ayaa kaa caawinaya sidii aad culayska iskaga yarayn lahayd. Beri subaxda marka la isku dayo in lagu kiciyo oo lagu bilaabo fadhitaanka beerta, dhulka isdhig sidii inaad xanuunsanayso oo kale. Subaxdii markii la isku dayay in dibigii la soo kiciyo, ayuu dibigii intuu qaatay taladii saaxiibkiis dhulka isdhigay, kadibna subaxdiis wuxuu yaalay sidii inuu xanuunsanayo oo kaleeto. Ninkii doonayay inuu beerta ku qodo ee shaqaalaha ahaa ayaa ku noqday ninkii dibiyada iska lahaa ee uu shaqaynayay. Kadibna wuxuu ku yidhi, dibigii maanta waa xanuunsanayaa. Ninkii milkiilaha ayaa yidhi, haddaba dameerka soo kici oo ku qod beerta si aanay shaqadu u kala istaagin. Markii ayaa dameerkii lagu bilaabay qodistii beerta. Maalintii oo dhanna dameerkii ayaa lagu qodayay beertii. Dameerkii ayaa lagu bilaabay qodistii beerta. Maalintii oo dhanna isaga ayaa lagu qodayay. Dameerkii doonayay inuu kaalmeeyo saaxiibkii. Markii habeenkii shaqada laga rawaxay ayaa dameerkii oo meel kastaba xanuunayso u yimiday saaxiibkiisii dibiga. Intii baanu hadal bilaabin dameerkii ayuu dibiga hadlay oo wuxuu yidhi, saaxiib, maanta shaqada waad iga nasisay, taladaada siisana talo fiican ayaa ahayd. Dameerka ayaa hadalka soo dhexgalay oo wuxuu yidhi, waxaan ahay saaxiib iska lab xaaran oo doonayay inuu saaxiibkiis u kaalmeeyo, balse ay noqotay in dhibtii saaxiibkiis uu ka kaalmeynayay isaga la saaray. Kadibna shaqadaada qabso. Waxaan maqlayay iyadoo ninka dibiyada qala loo sheegayo in haddii mar dambe aad sidan samayso lagu qalo. Intaas waxay ka dameeyay dameerkii iyo dibiga mar dambe ma aysan wada hadal, sidaasna ayay ku dhammaatay saaxiibtinimadoodii. Haddaba ma garan kartaa xikmadda ku jirta sheekadan?